wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan. Mawduucan wuxuu ku saabsan yahay xaaladda loo yaqaano fibromyalgia. Xaaladdan qofku wuxuu dareemaa xanuun aad u daran. Balse intayna mawduucan bilaabin, waxaan si xushmad kaga codsanayaa haddii aad qayb ka dadka ku taxan akoonkan inaad saarto furays markaana qayb sare profilka linka ka saaran YouTube-ka asagana sidoo kale aad noo saarto subscribe. Aad baad mahadsantahay. Hadduu ugu soo noqon mawduuceenne xaaladda loo yaqaano fibromyalgia ayaa dad badan oo Soomaaliyeed waayada dambe aad uga cabanayeen. Xaaladani ma la garanayo sababta oo ay keena balse waxyaabo badan ayaa loo maleynayaa inay keenaan. waxaana ka mid ah weerar xooggan oo qofka markaa soo asiiba sidoo kale dhaawac qofka soo gaaray sidoo kale waxyaabo kale oo markaa ku taxalluqa nolosha caadiga ah markaa qofka ayaa inta badan loo aanay ama loo sababeeya inay keenaan xaaladda loo yaqaano fibromyalgia. Si kastaba ha ahaatee marka laga hadlayo daweynta waxaa la tilmaamaa in loo daweeyo in qofku qaato dawooyinka loo yaqaano painkillers kuwaas markaa qofka hoos uga dhigaya xanuunka ka dareemayo qaybaha kala duwan ee jirka. waxaa kaloo qofka la siiyaa habab markaa uu raacayo waxaa loo yaqaano jimicsiyada kala duwan iyo sidoo kale hanaan kale loo daweeyo sida yoogada oo kale. dhammaan kuwaasi waxyaabo ka caawinaya qofka in la yareeyo xanuunka dareema markaa qofku uu ka dareemayo waxaa loo yaqaano qaybaha kala duwan markaa jirka taasoo markaa ugu dambeyn qofka yareynaysa xanuunka markaa uu dareemayo. tani kula dambe nabadgelyo.